mararka qaar waxaa wanaagsan in qofku iska aamuso intii uu dadka u sheegi lahaa dareenkiisa sababtoo ah way ku sii dhaawacaysaa goortii aad ogaato inay ku maqli karaan laakiin aysan ku fahmi karin waxaan ka xiran karnaa indhaha waxyaabaha aynan rabin inaan aragno laakiin kama xiran karno qalbigeenna waxyaabaha aynan rabin in aan dareenno aad bay daruuri u tahay inaan xushmayno dareenka dadka kale kala fogaanshuhu ma baabi'iyo xiriirka ma ahan inaad aragto qof jecel idinka dhexeeyo maalin kasta muhiim ma ahan joogitaanka qoloftaada ee waa waxa qalbigaagu ku jiro waxaa jira hadal u waxyeelo qalbiga si ka daran seef lagu dhuftay waxaa jira hadal qofka ku noqda waran kaga taagan wadnaha noloshiisa oo dhan ka taxadar hadallada aad dadka kula hadlayso jeclow waxa qalbigaagu rabo ma ahan waxa indhahaagu arkaan ha ka walwalin waxa dadka kale yiraahdaan ama kuu arkaan kani waa jecelkaagii ma ahan kooda jeclow ama ka tag qalbi ku dhaawacay balse marnaba adiga ha dhaawicin qalbi ku jecel run waa loo ekaysiin karaa dhoolla caddeen iyo qosol been ah laakiin marnaba lagama been sheegi karo ilinta iyo dareenka dhabta ah xiriiro badan ayaa burbura sababta ugu weynna ma ahan jaceylka oo meesha ka maqan jaceylku had iyo jeer waa uu joogaa ma ahan mid taga qof ayaa keligii aad wax u jeclaa halka qof kalena isaga jiray ciyaar iyo qiyaali ha u ogolaan xiriir hore oo noloshaada ah inuu burburiyo farxadda mustaqbalkaaga nabarka ama xagdintu waa inay ku xusuusiyaan wixii aad ka soo gudubtay ma ahan halka aad u socoto dadka qaarkii marnaba ma lunto quruxdooda si kastoo ay u weynaadaan da'dana ugu darsanto sababtoo ah quruxdooda marnaba ma ahayn wejiga waxay ahayd qalbiga